السلام عليكم مقارتي والبجكتين ومر كلمة قال عسب وكيك دون وركي قدام بسوق أخبار ديوا ولا ديبان جنينيو ليفربول ودفاع كتوني سكوح أستون فيلا إلا حالة بركلا وحي سكر ديا هكريمين هشيس كبارشة إلا جاري كرت رودري يقو أنك مدريد لجسوجيو باريس سان جيرمان أدوني سمان لا كوستا سيتي وكله جول هاي إن لو ركتو يو وركلت يعني إيجينا هديا مقال كيشنو لا جري كانال كنا سبسكرايب نصار هديا لكم بلاونا أخبار دي قدام بسوق وربنا يلا ديبان جنينيا وليبا حالة waaweyn ayaa jira sheekada Rodri update dhowr ayaa ka soo kordhiya sheekadu daqiiqad walba daqiiqad ka dambaysa dhinaca kale ayay u sii durkaysaa oo xaaladu markan waji kale ayay yeelanaysaa laacibka reer Spain markan wuxuu u dhaqaaqi karaa kooxda Barca sida wararka Spain ka imaanaya ay haatan sheegayaan sida Marca iyo kuwa kale xitaa wariyaha caanka ee lagu magacaabo Massimo Morato haatan wuxuu leeyahay Real Madrid ayaa la sugayaa go'aankeeda inuu cadaado halka xidiga Manchester City ninka lagu magacaabo Rodri oo markaan heshiis uu la gaari karo Barcelona waliba sida Fabrizio iyo kuwa kale haatan ay warinayaan laacibkan ayaa green light ka siiyay ama ogolaansho siiyay u dhaqaaqitaanka Barcelona middaana waxay ka dhigan tahay arin aad u weyn maadaama Rodri markaan oo dhinaca kale u weecanayo laakiin go'aanka ugu dambeeya Perez ayaa iska leh hadii Madrid si rasmi ah dalab rasmi ah official ah ka soo gudbiyaan xidigan wuxuu noqonayaa laacib dhanka iyo Madrid u dhaqaaqaya laakiin xaaladdu sidan hadii u soo xirxirnaato Barcelona ugu dambeyn laacibkan gacanta ay ku dhigayaan shabaq cilaana kubadda way ku taabanayaan marka Rodri marka sheekadiisa update-kaas ayaa ka imaanaya oo laacibkan markan green light ka ayuu siiyay dhanka iyo kooxda Barcelona xitaa haatan Barcelona ayaa contract markan laacibkan hordhigaysa xilli sidoo kale Man City ee doonayaan laacibkooda inuu cishtaan miiskan uu saarayaan heshiis gaari ilaa 2030 marka sheekooyinkaas ayaa haatan isoo taray akhbaraadyo kala duwan ayaa la daabacaya xilligan haatan muuqaalka duubay abdeedyo dhowr ayaa ujeedo xidigan ku aadan laakiin sheekada ugu weyn waa laacibkan inuu green light ka siiyay Barcelona markan uu doonayo halka inuu u dhaqaaqo laakiin weli Madrid ayaa la sugayaa ninkan weli Madrid ayuu qalbiga ku hayaa sida daraadeed waiting ayuu ninkan galay Madridna waxa laga sugayaa go'aanka ugu dambeeya sida uu daabacay ninka lagu magacaabo Massimo Morato iyo majalada kale lagu magacaabo marka xaaladda Rodri halka ayaa maraysa adigoo fikirkaadana la wadaag Rodri halkee ayuu u dhaqaaqayaa ma Barca mise Real Madrid mise Man City ayuu sii joogi karaa fikirkaadana la wadaag sidoo kale Manchester City ayaa gabagabeynaysa goolayaal lagu magacaabo Rulli oo Argentiniana ninkan waa 34 jir waa shabaq ilaaliye Man City ninkan waxay u rabaan backup oo kaliya maadaama James Trafford oo dhaqaaqay goolahayo kale tan haatan kasii dhaqaaqay laba gool ayaa Man City maanta gudaha si rasmi ugu dhaqaaqeen sida daraadeed laacibkan backup ayaa ka rabaan haatan heshiiskiisa way ku dhow yihiin waa gabagabo xaaladdu markaan waxay u muuqataa mid soo gabagaboweysa marka shabaq ilaaliyahan cajiibka ah ee ka tirsan kooxda kubadda cagta ee Olympique de Marseille ama Marseille markan wuxuu noqonayaa laacib Man City ku dhow sheekadiisuna ay gabagaba haatan maraysa L'Equipe haatan waxay daabacaysaa in xaaladda la dhameeyay laacibkan oo Manchester City u dhaqaaqayo deal islan uu yahay majalada Faransiiska ee L'Equipe ayaan haatan warbixinta daabacaysa laacibkan ayaa u soo ciyaaray kooxo fara badan Villarreal Real Sociedad ayuu u soo ciyaaray Spanish haatan Marseille ayuu ku sugayaan ninkan 2021 waa ninkii Europe League lugtiisa ugu qaaday kooxda kubadda cagta Manchester United markii rigorooyinka la joogay 12 rigoor way dhaliyeen Villarreal halka rigoor Manchester ay khasaarisana degay ayaa khasaariyay ninkan ayaa ka qabtay tiisan inta u dhashtay marka ninkan ayaa haatan Man City doonayaan inay gabagabayaan dhinaca kale xaaladda Liverpool iyo wax walba aad haatan uga baahan tahay من دفاع ay ka doonayaan kooxda kubadda cagta Aston Villa ilaa xaaladda Barcola warar dhowr ayaa imaanaya walow Barcola wax weynaysa ka cusbeen Liverpool haatan waxay doonayaan Enrique Konza ninka lagu magacaabo ama Konza oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Aston Villa haatan waxaa la warinayaa Liverpool inay ninkan lagu magacaabo Enrique Konza ee daneynayaan Aston Villa ay rabaan inay ka soo qaadaan Aston Villa ruuxeeda iyadu markan go'aan ay gaareen lacag ay doonayaan xidiga badan ay go'aan ka gaareen Emiliano Martinez ku jira oo koox badan oo Juventus ugu horeysay doonayso marka Konza sidoo kale Arsenal ayaa dagaalkiisa qayb ka ah oo xitaa waxay rabaan dalab tijaabo inay diraan si walba haatee laacibka Liverpool ayaa si weyn u daneynaysa Liverpool dhibaato difaac ayaa haysata waxayna rabaan dhibaatadaas markan inay soo xaliyaan ay rabaan Konza raadintiisa waxay soo bilaabeen May ayay soo bilaabeen ilaa haatan way daba taagan oo shada sare ay kala socdaan ugu dambeyn xaaladdu way guda galayaan ayaa la leeyahay xidigana waxay rabaan inay soo xirigeliyaan walow Aston Villa lacag badan 60 milyan ka badan ay ku doonayso xidiga lagu magacaabo Enrique Konza si walba haatee
liverpool waxay diyaar u tahay markaan laacibkan inay ku qarash beelaan difaacan dhibaatada badan ka taaganna markaan inay xaliyaan bedelka ibrahim kanota ayaa la doonayaa joe gomez waa dhaawacmay virgil van dijk waa da sidaa daraadeed waxaa loo baahan yahay iigu cusub oo difaac ayaa loo baahan yahay liverpoolna haatan waxay ka shaqaynayaan ninka lagu magacaabo konsa sidoo kaleeto xaaladda barcola liverpool warar dhowr ayaa u imaanaya liverpool dalabkii ay ka gudbiyeen barcola waa lasoo diiday si aan la wada soconno haatan wadahadaladu dib ayay u bilowdeen walow maanta iyo shalayto wax weyn aysan kasoo kordhin sheekada barcola laakiin nimanku haatan kalsooni weyn ayay haystaan sida ay warinayso majaalada lagu magacaabo team talk waxay ku leedahay liverpool kalsooni weyn oo boqolkiiba boqol ayay qabaan laacibkan inay heliyaan weliba inaan laga dulqaadi doonin inaan lagu adkeenin wax walba markaan kalsooni ayay u qabaan laacibkan cid kaleeto kula tartamaysa oo haatan la dhihi karo way ka dulqaadi karaan ma jirto Paris Saint-Germain iyaduna waxay la soo wareegeenba bedelka xidiga lagu magacaabo Barcola waana xidiga la yiraahdo Aklich oo dhanka iyo Monaco contaminated ugu yimid maantana Paris ku sugan tijaabada caafimaad maraya wax walbana dhameeyay sidaa daraadeed Liverpool kalsooni weyn ayay markaan ku qabaan helitaanka wiilka reer Faransa kooxda Parisna ka tirsan ninka lagu magacaabo Barcola walow qiimaha lacageed ee kooxda Paris Saint-Germain ay doonaysay tahay in ka badan lacag gaaraysa 45 milyan liverpoolna waxay rabaan ugu yaraan 30 milyan 130 milyan meelaha laacibkan inay ku gabagabayaan Paris waxay ku leedahay 140 milyan ilaa 145 milyan ayaa daneynayna markaas breakinka waa kalsoonida liverpool laacibkan ayaa ugu cadcad arsenal ayaa raadinaysay laakiin way ka tala bixeen arsenal waxay la wareegeen Cristo Toliza iyo rakaleta ay meelaha ka dayanayaan marka Viniciusna waxay u muuqanayaan kuwa ku hongomay maadaama muuqaalka hore kula wadaagay in heshiis uu saxiixay 25 milyan oo ka qaadanayo kooxda Madrid kasoo gudub Liverpool kalsooni weyn ayay ku qabaan Barcola iyaga ayaana markaan ugu cadcad marka waxaa leeyahay dalabkii labaad oo rasmiyan mar labaad ayay markaan u celinayaan xidiga Barcola dhinaca kale xaaladda Paris Saint-Germain ayaan sii eegaynaa Paris Saint-Germain waxay duulaan ku yihiin Chelsea ayay ka doonayaan Malo Costa dambeedka midig ayay rabaan markan in iska soo adkeeyaan Ashraf Hakimi marka waxaa la rabaa nin la tartansiyo ayaa la rabaa xitaa ninka dhaawacyo dhowr ah ayaa soo gaaray maadaama tartamo badan uu ka qayb galay Champions League horyaalka koobka adduunka kii Afrika marka jam badan ayuu galay Ashraf Hakimi marka xoogaa nasiin ayuu u baahanaya marka xidigii hore ee kooxda Olympic Lyon ninka lagu magacaabo Master Malo Costa oo haatan Chelsea ka tirsan ayay Paris Saint-Germain daneynayaan waxayna rabaan ninkan inay soo xirigeeyaan 43 milyan ay ku qiimaysan yahay laacibkan sidoo kale Manchester City ayaa raadinaysa macalinkiisa hore ee Maresca ayaa indhaha ku haya xidiga lagu magacaabo Malo Costa marka dagaalku waa dhinacyo badan yahay marka Chelsea iyadu xataa si fiican ay u ciyaarayaan oo gameka suuqa si fiican ay u fahansan yihiin laacibkii ay isdhahaan bedelkiisa nin ka fiican ay helaysiin lacag fiicanna waa kusoo gadanaysiin isla markii way iibinayaan lacag fiicanna way ka faa'iideeyaan sida Coquelin oo kaleeto xidiga la yiraahdo Pepe Jafari iyo bedelkiisa u keensadeen waa 19 milyan ayaa lagu soo qaaday haatan Coquelin lacag fiican ay Madrid ka siisteen marka nimanku iyaguna shax fiican ay ciyaarayaan Paris Saint-Germain markan waxay doonayaan xidiga lagu magacaabo Malo Costa marka waan arkaynaa wixii soo kordhaadaya muuqaalka shan la garay kana subscribe nasar goodbye